السلام عليكم صاحبيال maanta muuqaalkiinu ka duwan yahay muuqaaladii kale maanta waxaan ku soo afri doonaa masjidka walaalkay Sheekh Abubakar Xoosh insha Allah taala hada waxaan soconaa xagga masaajidka ka hor waxaan sameyn doonaa su'aal isweydaarsi fikir isweydaarsi ma sha Allah tabarakallah maanta waxaan joognaa masjidul nadwa masjidkii Sheekh Abubakar saaxiibkay Abubakar Xoosh مسجدك كقط بدايه مسجدك إمامك كيهي ما شاء الله تعالى كافر دونا هدي الله ود الإدمه وأنا جايه شيخ أبو بكر بشبرة كيسان رمضان حكيف هذه السنة مسجد كن رحت بدن سيكون احتكاف هنا سيكون تكلينا تراويح لصلاة الليل ما شاء الله بس إن مريا ما شاء الله مساجدك قروح السواك قدام بيا ما شاء الله تبارك الله جوجنا شيخ النوينا حفظه الله شيخ أبو بكر حوش ما شاء الله. أهلا وسهلا وفرحة وين إن عبد الرحمن أما قيس سأوسق أنا لو جيبوتي نو يمد وداعي وين كان نقضي جيبوتي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله نسور دبو وجيبوتي وحل هذا ماشى مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي ما شاء الله. أما وامي يعني هذا مسجد كيجي أن كأخذ بديني ماشان وحبا لغو برتا فرسما ذاك عنك دوا نمعدى إلهي بالغو جيره ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وحبا مساجد كان قداش إذا ساعة كيسان وحبا مساجد كأخذ بديو شيخنا أبو بكر وحبا ما أنت هالكم مكوافرينا شو دقم مساجد قادرنا وحبا وحي طلاق يتصالي والدنيا وأنا إن شاء الله هالكم بشيخ ومان نوشيك دونا إن شاء الله بإذن الله الكريم. هذه أبغى فرصة صاحبك أبو بكر حوش مساجد كيسة قيمها بدن بمسؤولية ما شاء الله تبارك الله مسجد على مسجد الندوة صباح شيخ. هاي مساجد وكاسي حاجة ما هي. ما شاء الله ما شاء الله. الساحل يصير بناكيس. هلك وهلك بناكي هلك نحكي لما ركسيدي ما شاء الله هلك حرصة جبرانية استمر قعدتها ما شاء الله. ما أنت إن شاء الله تعالى وبالبركة يسمى في رمضان يبدو ما الشيخ داولي لكن ما أنت وأنا الله أفرح يدي إن شاء الله. sidoo kale hadda waa 6dii maqribnimo ay ku sii dhowdahay afurkii waxa ka dhiman 20 daqiiqo marka 20 ka daqiiqo insha Allah biidnillahi karim sheekhu wuxuu inoo faa'iideyn doonaa in yar oo waxa weeyaan faa'iidooyinka Ramadaanta iyo waano sheekhan ku soo dhaweyn doona hadii Ilaahay ka dhigo. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. runtii horta aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta Djibouti kula kulmay Qays Abdurrahman iyo Abdusamad Mawel raggan aad baan u daawan jiray waxba inaga qarin maayo waa rag aan ka helo barnaamijyada ay soo dhigaan aadna aan uga faa'iideystay runtii anoona Somaliland meel badan aan tagin ayuu igeeyeen iyaga igeeyo soo mariyay oo soo dalxiisiyay marka runtii fursad weyn inaan Djibouti ku kulanno saaxadeen barakaysan ee masjidka maktabka nadwada farxad weyn ayay tahay soo dhawaado marka hore masaajidka iyo banaankiisa iyo meesha weyn waxba lagu bartaa farsamada gacanta runtii farxad weyn ayay tahay inta waxa ay raacsan waa bil barakaysan walaalahana daawanaya waxaan leenahay kullu aamin wa antum bikhair taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal ilaahay inaga wal aqbalu amaash wanaagsan bishan waa bisha barakaysan waxa inoo dhamaaday marka waa 10kii hore ayaa dhamaaday 10kii dhexe ayaa bilaabmay waxaan ka faa'iideysanaynaa 10ka cisho imika waxaan baranay ay Ramadaan ina bartay duruus aan hore u aqoon waxa kamida darsiga koobaada waxwaan karaa waxwaan baran karaa waxwaan samayn karaa waxwaan ka tagi karaa bisha Ramadaan eeg waxaan karnay inaan soono 10 cisho waan karnay waan karaa inaan cuntadii aan ka tagay waxay xalaashahay inaan ka tagay amar ilaahay anigu aqbalaya kii sigaarka cabay sigaarkiisu uu ka tagay wuu karaa inuu ka tago ma karo ma jirto wax la yiraahdo uu ka tagi karaya waxaan karnay
وإلهينا كرسي إنان طبعا كعشاء مكان رمضان إنان هبين والبا تكنو فرد كيس كده إنان تكنو كل يتبرك عضوت وتراويح هبين والبا وانكرني إذا وحنكرنا بشر رمضان ما كان بحدك الديب إنا سدح ركعات أنت كذا ما نكرين نيك يا كرا رمضان كي نوغير القرآن أنا آخرين مكان وحو آخري طبعا جزء آخري يعني ما أنت جزء آخري كي نوغير ويان وحنكرا بعد رمضان إنا آخري جزء قرآن وانكرا وحكينا يمالينا المار وانكرا إنا تكذو هبينكي إنتاس إنا دعيستو وانكرا محاي نودي لي markay bisha Ramadaan ay baxdo maxaan ula baxnaa masaajidii baa laga baxay masaajidkaas uu buuxsamaa bisha Ramadaan ma baxda habeenka ugu dambeeyay Ramadaan dadku wala baxaan aaway salaadihii dibba salaatul leelki ma jirto quraanka akhrintii way yaraataa wixii oo dhan wax walba u yaraadaa idan bisha Ramadaan wax walba waxayna baraysaa waa bil Ilaahay ag caadi ahaanba bisha Ramadaan waa bil Ilaahay baa aasaasay wal bidarasay Ilaahay wuxuu yiri qof walba oo muslim bisha hagalo كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم قال لي حنو قرنا بشهر رمضان وبدرست حنو قرنا يا صبر gaajada kaysiga quraanka akhriintiisa dib loogu noqdo waxa lagu baranayaa dareetin walaalaha dadka baahan oo kale iyo dadka caynkaas inada yani duruuftooda agarati waxa lagu baranayaa wax bixinta waxa lagu baranayaa salaadul leelka waxa lagu baranayaa markay bishu ay baxdo الشهادة اللي بحيامة إلهي شهادة كرسينا دعاء دي بلا أقبلية نار تلقى حرينا باب هي جيرة جنة الليلة هذا باب الريان وضدك الصومال أي كجلان هي جيرة وحيانا بلا قفا إلي سنة أو آخر سنة آخر شهر بيش مركي قاعدوا إلهي وبحنايا بالجد ولا بحنايا وحين نقول ما تبشي سنة كي مر بيت مادة لبيه طبعا كي بلاد مر بيت مادة بشاس إلهي نمدي بيش أنا وحلي الوقت أنت سؤال شرب هذه السنة أنت مركوا ومدرسة رمضان لقفا إلي سنة يو قفوا البقى مسلمة إنه كفا إلي استوعوا قالوا أو محا إلهي محو إلهي ولا يهي قاتشدين إيو هرات كين إيو فإذا إلهي محي إلهي وحبه وضحن إلهي ما يفعل الله بعذابك إلهي عذابك المحوكة دي إلهي إنه عذابه قاجي الرفاضي إنه إلهي نقول بحا وكفى إذا إلهي ودروس إن الدرنتيد كجاجونية كرفاض سن كهر عافي ما عندما يقولها وأن تصوموا خير لكم إلى إن الصومتان بيني خير بدل هذا وحكتي عقرنا إنسان علمي بدل مكفى إذا هان ضدك بخار إنسان نقضي قاربا بخار نقضي وهو حلقها للمعان نانان بالغها سريد بالغها غاس بالغها dadka wax jira wax walba laga helo walaabay bakhaarka ya ordak marka bisha Ramadaan waxaan uu kala yaaraanaya mawti caafimaad baa ku jira marka waxa bishan duruus badan oo la koobi kareyn ta ugu muhiimsan la'allakum tattaqun waxa laga yaabaa in Allah cabsi qadiyalata wax dareentaan oo ogaataan oo waa cilmi badan wax laga helayo marka Ramadaan waa bil weyn weeyaan aad iyo aad weyn إلا جفا إليستو أيام المعية بشرط. هذه أقول ما سوي الشيخ أبو بكر ما شاء الله تبارك الله وعده يسوي والده يسوي إلهي نوفقه إلهي نقدر نقول آل بشر مقرنس كوا بشر بركة سنة رمضان راعة كوا بشر مقرنس كهارش طاب ضرب بشر كهارة إلهي كوا نقول يلا إن شاء الله تعالى واحد على استينا سؤال الدين يا سويدينو ما شاء الله سؤال يرجع عبنا الدين يا إن شاء الله تعالى الشيخ رو الدين يا ليس النوت سيدا ديجا حلاشة النبي يقول له شيء عليه الصلاة والسلام لا بدي وبركة وديك فدي أبو بركة النبي قال له شيء وحلة ترى عشرتان كم وها يهودي النبي سحرين صلى الله عليه وسلم لا أقول لك لا علمي هي sida sheekhu inoo sheegay ma sha Allah waxa weeyaan Ramadaan waa bil aad u qiimo badan oo waxa weeye ka faa'iideysigeedana mudan sidoo kale sheekha bal anigu fursadan ka faa'iideysanaya waxaan weydiinayaa waxa jira dad badan oo xanuuno kala duwan leh waliba Soomaalida xanuunada macaanka iyo waxyaabahaas aad bay ugu badan yihiin waa maxay cuntooyinka ugu habboon ee uu qofku ku afuri karayo ku suxuuran karayo yani diiniyana ma aragtay وين دخل ويدي عادي ما
وارون ما شاء الله وحويان رمضان تفايدون كذا ساون شيخ وينور شيء هل كان لقوا مسوا كوبي كرو سؤال شاء الله بعد الشيخ ويدينا وحويان واحد شراء بشان رمضان لأن يرب بدن وحوي يقع عافمات قضاء وعافمات كوبي اللي حد كودي بدهم يسترين هاي هذا نيجي رئيستا وأنسو من ويبشار رمضان أما سير كجتكتو أما وحير كالصومة أما ما ركت أي لفظ ضدها محاد وحنا الصيحة ما ركت الشيخ هذا وشيء يسمى بالنيرته بسم الله والله runtii waa wax lala yaabo qof dhalinyara oo ilaahay caafimaad siiyey oo quwad siiyey oo ammaan iyo amni ku dhex nool oo haddana aan soomayn yani waxaa lala yaabaysaa waxay ku oranayaan muslim baan ahay ilaahay buu caayaa oo nebigu caayaa oo diintu caayaa kow salaad ma tukado bisha ma soomo zaka wuxuu ku leeyahay xoolo ma haysto xaj xoolo ma haysto arkaantii islaamka muxuu ka hayaa wax alla wuxuu ka haya male isagoo caafimaad qaba ayuuna soomayn dadkii xanuunsanayay way soomayaan isagoo ilaahay uu siiyey ammaanka ku dhex nool ayuuna soomayn dagaal ku dhex jira ayaa moogtahay soomaya yacni qofka kas uga taga hadduu inkiro waajibnimadeeda iyadu waa xad kale qofka kas uga taga maalin qurata xataa ha noqotee ilaahay kama aqbalay sanadka oo dhan xataa hadduu soomo kama aqbalay ilaa uu toobad keeno oo dib ilaahay uu soo noqdo tooba yaa rabbi yidhaahdo oo dee la garay laakiin ajarkii uu ka heli lahaa maalinkaa qurata ee soonka ah ajarkii uu ka heli sanadka oo dhan xataa hadduu soomo kama helay ajarkeyga marka waxa weeyaan waa dembi weyn amarka ilaahay inuu diido inuu soomi waayo inuu maaragtay waa wax laga moogta marka waxa weeyaan waa nin amarka ilaahay yidhi ilaahay anigu kuma adeecin yaa ayuha aladiina aamanuu ilaahay kii alliya nabiga sir kutiba calaykum waa lagu farad yeelay kutiba calaykum asiyaam isaga kuma jiro leeyahay anigu kuma jiro yani waa halis weeyaan marka qofka ka taga halis hadduu uga tago kas ahaan uu diintiisa uu halis begelaysa yani inuu maartay laakiin haddii ka tahay waa farad waa waajib waa qof inkiri kara mal aayad qur'aana sheegtay oo nebiga sheegay oo arkaanta islaamka diinta idil islaamka uu ku dhisan yahay arkaanta uu ku dhisan yahay weeyaan marka qofka jabiye kasu jabiye maxaad u malayn waa anoo yidhaahda ma tukanayo kas anoo yidhaahda ma soomayo sanadkii mar bay ku imanaysaa sanadka idil 12 bilood bil bay ku imanaysaa 11 kale cun oo cabaa lagu yidhi laakiin bishaasi weliba ilaahay ku naxariisto dharaartii baa lagu yidhi habeenkiina cun marka maxaa caafimaadka ku jira dhakhtarada maanta ku qorayaba cuntada yaree maxay sameeyaan kan gaar sameeyaan hannasto marka waxa weeyaan qofka muslimka ee weliba dhalinyaro ee ka taga maxaad u malayn su'aal labaad baan weydiinayaa sheekh Abubakar sheekh Abubakar inta badan dhalinyarteena iyo dadku markay soomayaan inta badan waxay isku qabtaan markay suxuurta kala cunayaan eedaanka qaar baa iyagoo eedaankii lagu jiro ka gaarsiiyo qaarna waxay dhahaan eedaanka ka hor cuntada markaad cunto ma garanaysaa wixii ka dambeeya eedaanku markuu bilaabmo ma yani cunto dambe afka ma saari kartid ka waran sheekh eedaanka dhexdiisa adigoo wax cunaya iyo eedaanka ka hor waxa la eegaya waa aadaankaasi miyuu waqtigaasi mararka qaarkood mu'adinka iska degdega mu'adinku miyuu degdegay oo waqti aan ahayn buu ku yara horeysiiyey mise waqtigiiba isagaaba habsaamay imaamku ama mu'adinku ama waqtigii aadaanka waxaa loo sameeyay waa in la joojiyo aadaanka hore ee daakiraadda la gari waa la cuni karaa laakiin kan kale waa inuu qofku joojiyo faraha ka qaado waxaa loo joogsaa lagu ka joojiyo allahu akbar marka la dhaho waa inaad joojisid ma sii wadayso ma odhanaysid inta aadaanka lala dhammaynayo waa inaad joojisid jooji waqtigii baa galaa lagu leeyahay aadaanka maxaa loo sheegay waa iclaam waqti waqtigii baa galay joojiya waqtigaasi salaada mawt ka waran qofku haddaanu ogeyn oo maaragtay hadduuna ogeyn la garay hadduuna ogeyn marka uu ogaadaba marka uu ogaado ka bilaabaya baad ogeyn hadduuna ogeyn baad moogtahay waxaad moodaysaa ilaa aadaamay ama in maaragtay ayaad moodaysa wada cuntay markaasaad ogaatay aadaankii inuu mar hore tegay marka taasi lagu qabsani maayo laakiin waxaa la diidayaa iyadoo la aadaamayo maxaa loo aadaamaya waa inaad joojisid waqtigii baa galay waqtigii hadduu galay waa joogso weeyaan ilaahay baa sheegay mawta waqtiga cadceeddu ay waqtigii aadaanka lagu kala gartaa aadaankaasi wuxuu waqtigii ku sheegay inuu gal jooji lagu leeyahay sheekh wax kaloo aan rabay inaan ku weydiiyo bisha Ramadaan ee barkaysan markay dhamaato waxa ka dambeeya 6 casho shawaal la dhaho 6 casho shawaal faa'iidooyinkay leeyihiin in yar ma nooga taban kartaa 6 casho nabiga inoo jideeyay calayhi salaatu wassalaam oo sunne oo muakkada
xasanada qurata waa 10 ajar moogta ayaa lagu helayaa marka sanadka marka uu 12 bilood uu yahay إيش حسنا هاي سنة إيش رمضان؟ 12 حسنة toban bay haysanaa ها هالكي صون وين سولا دقمة؟ toban soo ma طبعا ها ليش وامس؟ صدح بغلاص saddex halkii maalintiida soddon cisho meel la soomin waa saddex boqol oo xasan وصدح بقو لحدي عشو ولحدة طبعا يضرب وامس ولحدة waa lixdan ولحدة سنة وامس ولحدة قفشة حوش اللحدة صومي سنة سنة إيدل أي أجر كيسي ما شاء الله لأنه حسنة قرأت وطبعا ما مركا صدن كي عشاء صومتي صدح بقو ولا دقمة لحدة نامسة lixdan cisho لحدة عشو أديكو أو سنة marka haddaad soddon cisho iyo lixdan cisho israaciso صدنك أو دم أديكو أو صومي sanad baad soomay dhan adoo soomay ka dhigata ajarkiisa أجر كيسة بليش مركا وخير لما حبيت بينوشي دي عليه الصلاة والسلام قفك الراعية بيقول النبي عليه الصلاة والسلام مركا راعين علماء قاركود وإسويديين ما مركو أيو مالي بوسومي بيش الشوال أو نبو هيستا سوي يسوي israacin حريري يصدق في عن إنه قف إسرائيل هي في عن لأنه وقت كان ميت بدو هيسايو هذا الكاي كان سيسيبان كرتا aad iyo هذا يكون أتكاتنا وكبر بودي كرا بيش أمو إلالين شوال أوردن muhiimadu waa shawaal laakiin inaad israaciso haddaad doonto tobanka dambeba israaci iyada fadli badan oo ku fadli badan inaad markii la ciido kadib inaad ku xidhi lixda cisho soo xidhi marka maalinta ciidda umaad ka boodi ayuunbaad ka boodi labada cishe kale la yidhaahdo waa labadii cishe kale ciidda xataa waad ما jirto ciid waa maalin ama ciid الفطري ama ciid الأضحى ciid الأضحى waa maalin ciid الفطر kuna waa maalin maanta la afuray ee la ciiday muslimiinta oo dhan bas maanta ka dambaysa waad bilaabay insha Allah taala su'aashan waxay noqon doontaa su'aashii ugu dambeysay sheekh waxa tira maalmo tobanka ugu dambeeya bisha barakeysan Ramadaan i'tikaaf nabigu sameeyay jiray sallallahu alayhi wasallam i'tikaafka nabigu markuu sameeyay jiray qofka musaafirka ah inuu ku i'tikaafo wadan kale ma u bannaan tahay sidee buu i'tikaafayaa in yar iyo taabas أنا اعتقادات دونيسا way fiican tahay hadduu qofku karayo magaalo uu fadhiyo 10 cisho hadda joogtid ba musaafir ma badiyid ba hadda i'tikaafaysid oo niyadu haysid oo leedahay waan joogayaa oo waan i'tikaafayaa oo fadhiya way ku fadli badan tahay waliba 10ka waxa ku khayr badan inaad fadhidid oo masaajid fadhidid oo dikriga iyo khayrka safarka iska joojisid ayaa ni khayr badan waliba labadina dhoofay ma talaliyaas ee boodboodaya meelaha tagaya dabaalanaya yaa adiga iyo saaxiibka qays inaad fadhidaan oo 10kaasi i'tikaaftaan oo masaajidka la fadhiyo dhalinyarta oo dhan runtii waa dardaaran aad u fiican waa 10kani waa al-khalwatu ma'a Allah ilaahay baad dib ugu noqonaysaa waad xisaabtamaysaa naftaada la xisaabtamaysaa waxaad leedahay maxaan soo sameeyay maxaa iga dhacay sanadka soo noqon doona waa xisaabtamaysaa adiga naftaada walla ilaahay baad ba ogtahay u toobad keenaysaa ilaahay baad arrimahaaga u sheeganaysaa waa waqti aad iyo aad u qaaliya shanqadhaad yaraynaysaa guuxaad yaraynaysaa iska daa telefoonka inaad qaatid oo Facebook ku jirtid iyo YouTube iyo waxa loo joogiyo TikTok iyo balaayi iyo waxa loo baahan yahay waqtigaasi inaad masaajidka fadhiisatid quraanka aad ka tagnayn dib ugu noqotid salaatul leylki inaad dib ugu noqotid alla kala barigii aad maartay inaad dib ugu noqotid inaad xisaabtantid sanadkan talow miyaan gaari Ramadaan ka dambe imisa sanadkii hore inala soonto maanta aan la soomeyn talow xaaladdu maxay noqon ilaahay inaad baridid inaad tiraahdo ilaahay oo habeenkii fadliga badnaa ee laylatul qadriga sharafta lahaa khayrka badnaa hadduu ku jiro ilaahay waafaji hadduu ilaahay ku waafaji wax ka khayr badan male waa habeen ka khayr badan kun bilood waa imisa dhowr iyo 83 sano cibaado aad soo sameey lahayd ba ka khayr badan habeenkaas 83 sano ka waran waa adigoo ku jira dhikri iyo khayr nabigu wuxuu man qaama laylatul qadri إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب قفك إلهي وافجيو هبين كسرك عبادة يستا دنبجي سهر دنب على دافيا وهبين قراطة كورك يعني واحد فكرتها أو سويديسا هبين كني dambi kasta والدنبجي واوي هذا ولا هذا ما وأنا أفر ما شاء الله eedaankii waa noo baxaya hadda waa furaynaa aad iyo aad baan salaamaya intaasna haydinaha faa'iido iyo ka faa'iideysi wanaagsan sheekhuna aad iyo aad u masan sheekh Abubakar الله يبارك فيك الشيخ جزاك الله خيرا هذا هذه عبد الرحمن